arintaas runtii anaga fajacaysan ugu noqotay wayna noo cuntami weyday runtii aniga ana iska hadlay shakhsiyan ma aha inaan wixii meesha ku qoraa oo dhan wada diidanahay laakiin wax badan annagaaba diyaar u ah inaan la saxno oo wax ku kordhino oo waxyaabo badan baa ku qoraa oo kasi balbalaaran ama se kasi faahfaahsan ama kasi qoto dheer wixii hore loo soo saaray wixii ku saabsan gobolka iyo horumarkiisa iyo nidaamkiisa waa wax dee madaxweynaha iyo dawladda iyo lagala hadli karo annaguna fikirkayga aan ka dhiiban karnay ahay dekada laftigeeda kambanigii joogay muxuu shaqayn waayay hadduu shaqayn waayay see laga yeelayaa ra'yi baan ka qabnay waxaa laga yaabaa inaanan aad u kala duwanaaneenba haddii si fiican looga wada hadli lahaa waxaasoo dhan marka haddii nalakama siinba fursad aanu wax kaga niraahno marka hadda iyo dan aniga waxay la tahay hadda warqad bay joogtaa warqadaas wixii ku soo qoraa hadday ku joogto oo waxaa ku qoran ismada soo saareen wada hadal ka furan yaho cidii markaas kala hadli kartaa يعني طبعا waxaan u maleeynaa waa dawladda una hadda ilaa hadda aanu ka soo tagnay meeshii laabashada aan ku laabanayna ma ay jirtee in aan la xirinin wada hadalkaas inuu san joogsan magaaladaas ayadoo hadda degan oo camiran oo shaqaynaysa oo dadku ay niyadsan yihiin ayaan ka nimid in si ahaato marka wixii hadda ka dambeeyana talo Puntland oo dhan u taalo weeye talo hal qof iyo laba qof iyo shan qof midna runtii iyagu ay go'aamin karaan aniga ilama aha marka inta wada hadal dambe la saga imaanayo nabadda la ilaaliyo wada jirka la ilaaliyo midnimada la ilaaliyo walaaltinimada la xeeriyo Puntland way wanaagsan tahay meel fiican bay maraysaa wax badan oo lagu kunyo ayay haysataaye in aan يعني horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda aan khatar la gelin marka dabcan reerqarnood iyaga mas'uuliyad gaar ayaa sii saaran runtii oo runtii anagu iyo dad badan hadaan sheekaysano saluug badan baa ugu jira inaad hawshaas qayb wax ka qaadan karteen in aad haddii daacad laga yahay oo runtii wanaaga lama wada arki waado ya waxa sax ah aragti midaysan waa laga yeelan karaa yani fikir kala duwan oo wixii siyaasadda oo lagu kala fikir duwanaan karaa laakiin waxa aasaaska ah oo basic ah oo nolosha oo hantida ah oo dawladnimada ah oo Puntlandnimada ah aragti midaysan waad ka yeelan kartaa markaas qofkii saxadna waad oran kartaa saxaba taa kii khaldanna khaladkiisa oo loo sheegi karaa marka kullay odayaal baatiin anagu hadda waxa idin farimayno oo waxay la tahay mas'uuliyadaas waad garanaysaan wayna idin saaran tahay marka inaad qaybtiina ka qaadataan oo ku dadaashaan ayaa rajaynaynaa insha Allah annaga hadii aragti dambe iyo fikir dambe nolol kaga baahdo nala weydiiyana kullay waxa weeye aragtidayada iyo fikirkayaga iyo wixii arintaas aanu ka qabnana la bakhaylmayno insha Allah oo waanu marba diyaar baan u nahay ama aanu dhawaan ama aanu dheeraano